السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واندين سلامي أخيارتا أنا آدك أجعلها إن بدن ما توحى وضع عشرير وصابسا بايثون عشر كاس وروكات لا حيالا لو يقانو تروتل هذا تقانوات تقانا انت عشر كجودها وقالين هرتو وحربا إن وحير أو فكر ليرادة أي إذن كسية وحيالها بدنا قفك لو قباهية مركو برنايو مادوين كبروغرامينكا fikirka dheeraadka waxa kale ma aha horta markii laga hadlayo real life programmerska waxa loo qaybiyaa laba nooc educational programmers iyo real life programmers macnaheedu waxa waaye qof wax barasho ku jiro oo baranayo programka iyo qof real life ka ku shaqeysanayo so muhiimadu ma ahan kaliya inaad ahaato educational life aad ku jirto waa inaad ka baxda oo aad gashaa life ka caadiga real life programmers ka aad kamid noqotaa adoo waxbarashadaada wato inaad shaqo raadiso oo ku saabsan waxa aad qabanayso ama self confidence ah hesho application aad sameyso asxaabtaada aad la wadaagto adoonan sameynaynin wax loo yaqaano adoonan sameynaynin tusaale ahaan ama qof u shaqeynaynin tusaale ahaan inaad projectiyo yar aad sameysato oo real life ah taas haddaad sameysid waxaad noqon doontaa qof completely dhammaystiran laakiin haddaad dhahdo keliya waxaan baranaa programming only waxaan ku jiraa marka steps oo practical programmingka caadiga aan mara haddaad dhahdid yacni macno ma kuu keenayso soo magaalka gal wax badan fiiri oo indhay markii laga hadlaayo dadka horumaray dunida yacni horumar markii laga hadlaayo horumar aan caadiga ah qof walba wuxuu iska soo qaataa laakiin horumarka adaa isgaarsiin karo markaad rabtid inaad steps sameyso waxyaalo badan aa u baahan tahay inaad ku guuleysato soo marka yacni aan barano wax sidoo kale aan ku shaqeyno soo waxa markii la barto oo lagu shaqeeyo waxay noqonayaan wax perfect ah sidoo kale macalin hadda ma loo baahnaba say la tahay adduunka waa sii horumaraya step by step loo sii hormaraya awal casharada waxay ahaan jireen la soo gelinayo kuwa lacag lagu qaato laakiin hadda waxa arkay cashir oo web complete ama dhameystiran oo free soo marka casharadaasna laga faa'iideysto in badan youtube-ka ku jiraan qof walba cashir uu soo geliyaa qof walba programmer uu soo geliyaa xitaa waxay soo geliyaan qaabka u shaqeeyaan dadka software engineering yani life cycle of software engineering qaabka u shaqeeyaan way soo geliyaan soo marka inaan ku sii dheeraado marabo qof walba marka oo hadda ku cusub basic fundamental programming ku cusub waxaan ku leeyahay brother soo dhawow ama sister soo dhawow ama qof walba uu yahay ha soo dhawaado programka ama programmingka ma adka laakiin wuxuu u baahan yahay juhdi dadaal iyo wuxuu u baahan yahay tactical waxaa la qofka inuu leeyahay wax loo yaqaano mathematician tactical yani qofka horta badanaa waxaa la qofka programmingka baranaya xisaabta inuu ku fiicnaado waaye yani macnaheedu taas ma aha xisaabta basic fundamental xisaabaadka inuu ku fiicnaatid muhiim waaye laakiin xisaabta oo idil ma aha so ha ka cabsanin soo gal isku day try it wax walba waxay u baahan yihiin isku day dad waxaa jira jecel inay bartaan programmingka laakiin waxay dhahayaan anaga xisaab isku fiicin inaan barano macquul ma noqon karto yaa nigala waalin yani programka markii laga hadlaayo xisaab dhan maaha isdhan waa functions shaqooyin la qabanayo shaqadii oo aad u bedeshay waaye tusaalehaan alaabtaas ii soo qabo waxaad u qoraysaa aad kood ahaan aad u qoraysaa alaabtaa lagu soo qabanayo saas leeyahay laakiin wuxuu u baahan yahay juhdi iyo dadaal wax walbana waxay u baahan yihiin juhdi iyo dadaal for example tusaale hadda dhakhtarka ama macalinka oo caafimaadka dhigaya isku mid maaha macalin aan dhakhtar ahayn oo caafimaad dhigayo macalin dhakhtar oo caafimaad dhigayo isku mid ma ahan macalinka dhakhtarka caafimaadka dhigayo it means wuxuu haystaa practical sidoo kale waa dhakhtar wuuna ku shaqeeya macalinna waaye sidoo kale markii laga hadlayo macalinka caadiga iska ah laakiin oo caafimaadka dhigayo aan dhakhtarka ahayn oo aan shaqeynaynin yani meel dhakhtar aan ka shaqeynaynin ama hospital ka shaqeynaynin kaas wuxuu yahay kaliya theoretical waaye ama qof theory ku fiican soo marka practicalka muhiim waaye theory hadii aad aadid waxa ku baabaa labadaba isku wad theory na fahan waxa ugu muhiimsan waxa waaye theory-ga ama waxaan nuxurkiisa inaad fahantid kadibna practical ahaan u bedel soo waad horumaraysaa soo aan ka gudbo taas waxay ahayd waano iyo aan idinku soo gudbinaan dadka ku cusub programmingka soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad hadda channelka ku cusub tahay subscribe saar oo asxaabtaada la wadaag oo share gare sidoo kale haddii aad u baahan tahay fifaalo dheeraada commentiga u reeb ama gmailkaygan hoos description kusoo qori doonaa meesha igala soo xiriir hadduu error ku qabsado soo maanta waxaa waaye cashirkeena wuxuu ka hadlaa wax loo yaqaano trutal muxuu yahay trutal waxa uu yahay haddaan fahmayna
waa kan Trutal Graphics waxaan baranaynaa maanta waxa loo yaqaano Trutal Graphics markii la joogo Python-ka maxaan uga baahanahay Trutal Graphics muxuu yahay Trutal Graphics so waxaan ku qeexi doonaa inta Google-kan ku qornay waxaan dhahnay Trutal so sidoo kale waxaa jira wax loo yaqaano website-kan haddaad booqatid wax badan aad ka faa'iideysaa website-kan loo yaqaano python.org haddii aad u baahan tahay inaad barato Python wuxuu leeyahay wax loo yaqaano community guide success histories news events waxaas dhan uu leeyahay iyo downloads waxyaalo la soo degsanayo meesha ugu muhiimsan waa kan documentation isuu leeyahay documentationska laba nooc dhowr nooc oo kala baxaan marka documentationka gasho fiiri عشرة خصائص عشرة خصائصنا كجرو يعني documentation كثير مشان beginners يعني قرال لسينا وحياله بوجاك بايثون كوسابسن قف كمركو beginner هي guide أما فرلا لسينا هاي moderate لحرحات كواي advanced وحاواي قف كسر مري أو advanced كا general good أهم كل developers كجرو سيدو كله videos كجران so وكبرن كرتامشان وسوس وفدودي هاي سيدو كله مركا لدقي سيد بايثون كلامن waaye documentation ka markii laga hadlaayo Python 2 iyo Python 3 so taas waaye inaan ku sii fahansiyo ma u baahnid so marka maanta waxaan fahmaynaa marka Trutal maxaa la horto page-kan muhiim ku yahay ama website-kan python.org marka qoraysid python.org qore kadibna waad booqane kadib waad arkaysaa wax ku jiro taas ay ahayd so marka Trutal aan fahmaynaa wax la horto Trutal wuxuu u baahan yahay wax loo yaqaano math xisaab qayb ka tirsan xisaab waaye markii laga hadlayo waxaan soo qaadanaa wax loo yaqaano x coordinate and y coordinate markii la joogo secondary-ga waxaan ku qaadanaa wax loo yaqaano x coordinate and y coordinate ama x axis ama y axis yani x axis iyo y axis so taas waxay noqon doontaa program aan soo wadno oo game ka hadlayo laakiin maanta waxaan sameynaynaa program yar oo calanka Soomaaliya aan ku sameyn doono calanka Soomaaliya aan sameyn doonaa program ahaan u qoraynaa يعني ما سبيرينو برنامج كانوا سبيرايو سيلو سمينا على الصومالية تاسا مهمة سو مرك انت انا سمينا على الصومالية ان فهمنا وحلو يقانو Trutal graphics محلها is a popular way of introducing program to kids وضعنا اما Trutal graphics يعني graphic لوغو تلقى graphic ادا تقانو وحاواي اول وحو هانجري CUI برنامج هذا مركي لسمينا حيليجي هوري waxaa la isticmaali jiray wax loo yaqaan CUI ama oo macnaheedu yahay command user interface yani command user interface waxa waaye command user ka qoray amarada hadda laakiin waxaan joognaa xilli casri ah waxaan isticmaalaynaa wax loo yaqaan GUI oo macnaheedu yahay graphic user interface yani waxaa la isticmaalaa wax loo yaqaano muuska laakiin markii CUI uu yahay only use waxaa la isticmaalaa wax loo yaqaan keyboard marka CUI waa ka gudubnay so marka aan fahanno Trutal graphics waxaa la dhahay waa graphic waaye oo ay leedahay Python looguna talagalay in ardayda ama ilmaha yaryar lagu baro wax loo yaqaano programming-ka sidoo kale waxay ahaan jirtay xilli ama original ahaan waxay ahayd logo programming language luqad loogu talagalay in lagu sameeyo logooyinka waxaana sameeyay laba nin oo la kala dhahayo Wally Vuyordzin iyo Seymour Probert nin iyo naag waxay yihiinba ha iska ahaadaan laakiin labadan qof ha sameeyeen waxayna sameeyeen 1966 waxaas kale ma u baahnin so waxaan rabay inaan fahanno Trutal-ka waxa waaye wax loogu talagalay in lagu sameeyo graphic user interface oo kale waa uu leeyahay Python so marka hadda waxaan galaynaa marka cashirkeena kan waan ka bixinaa marka cashirka markaan rabay inaan galo waxaa muhiim aan dhahnay in aan noogu jiro computerka wax loo yaqaan VS Code ama Visual Studio Code Visual Studio Code markuu kugu jiro computerka waa kan waa internet leeyahay so waxaan ku bilaabi doonaa marka cashirkeena Visual Studio Code kan ku qori doonaa kadib meeshaan ka soo kicin doonaa sidoo kale waxaan baranaynaa qaabka Python-ka loogu Trutal-ka loogu import gareeyo anu horta waa igu import gareysan yahay ama ku jira يعني install waa ku sameeyay laakiin aday waxa laga rabaa markaad rabto inaad ku install gareyso in aad ka isticmaasho command-gan aan ku siin doono ama markaan kugu soo qori aan ku qori doono meesha marka isticmaashid Trutal-ka caadi u gali doona Trutal-ka caadi aad u isticmaali doontaa command-ga muxuu yahay ama amarku muxuu yahay so first starter waxa ay sameeysan folder oo loo yaqaan Trutal wuxuuna ii yaalaa desktop-ka so waxa furi doona halkan markaan information waxaan ku qori doonaa marka testi ama lesson 1 ama cashirka koowaad cashiradeen way badan doonaan cashirka koowaad lesson okay si uu noogu fududaado test 1 aan leenahay testiyadan badin doonaa ama testi aan leenahay .py macnaheedu maxaa waaye waa py macnaheedu waxa horta waa kan waa tirena
si qaldan u save gareysme waa tirena waxaan leenahay delete kan waan tirena asna ma tirena rename leenahay kan waxaan leenahay rename magacan ka bedelena okay waxaan leenahay meeshaan fiiri markaan rename dhaho oo aan testiga tago oo aan rename dhaho waxaan ku qori doonaa meeshaan testi.py oo macnaheedu yahay py daas waa extensionka ee leedahay python oo waxaa laga soo gaabiyey python kadibna intaan leeyahay so commandiga aan ku siinayo ama amarka aan ku siinayo wax kale ma aha markaad rabtid in python-kaaga aad bartid computerka yani visual studio code-ka oo python-ka lagu soo kicinayo meeshaan right click leeyahay waxaan ku kicin doonaa wax loo yaqaano run python file terminal so markaan ku kiciyo waxaad arkaysaa meeshaan python fileka inuu qaatay inta cls dheh so markaan cls dhaho wax kale ma sameynayay cls markaan dhaho okay cls markaan dhaho wax kale ma sameynayay waxaan rabaa inaan ku sameeyo wax loo yaqaano codeka waxaa meesha ku qoraya installationka markaan rabo inaan ku install gareeyo pythonka trudalka inaan ku install gareeyo markaan rabo maxaan leeyahay waxaa laga rabo mo waxaan leeyahay pip oo macnaheedu yahay pip waa markii la rabo in lagu soo install gareeyo pip install aan leeyahay maxaan install gareynaa wax loo yaqaano trudal waxaan leeyahay turtle kadibna enter aan leeyahay so markaan saas dhaho hadduu installation yahay ama uu ku shuban yahay computerka wuxuu ku leeyahay mar hore ku shubatay application-kan trudalka wuu soo aruurinaa galactic trudal leeyahay kadibna wuxuu ku leeyahay application-kan mar hore computerka uu ku jiray hadda ma u baahnid inaad ku shubatid so meeshaan wuxuu kusoo waa kan waa ujeedaa wuxuu kugu soo qabtay kan aan iska highlight gareeyo meeshaan wuxuu kusoo qabtay fiiri wuxuu kugu soo qor waxa laayo wuxuu kugu soo qor fiiri you using pipe version however version available python okay cls dheh horta so waxaa leenahay pipe install trudals صح trudals waa malena trudals requirements yes هذا waa trudals waaya يعني waa kan turtles tan ka tagay sorry waa ka xumahay so meeshaan fiiri requirement already satisfied it means hore ugu jireen datadan package-ka laakiin hadduu aad isticmaalaynin installation-kan waa lagaaga baahaya cause waxaan soo import garoon doonaa wax loo yaqaano trudal so marka cashirka wuxuu ka bilaaban doonaa meeshaan waxaan soo import gareyn doonaa trutalka see loo soo import gareeyaa yani trutalka waa package uu leeyahay wax loo yaqaano pythonka so meeshaan waxaan leenahay marka si aan usii isticmaalno cls aan leenahay so meeshaan markaan joogo fiiri waxaan leeyahay marka import waxaan soo import gareynaa wax loo yaqaano trutalkan soo import gareynaa kadibna enter aan leeyahay okay import waxaan soo import gareynaa trutalkan soo import gareynaa waxaan leeyahay trutalka iisoo import garee import trutalka markaan soo import garee hadhow haddii uu trutalka package-kan oo installation ku ahayn oo pipe install trutals aad dhihin it means ma ku install gareys maaha so ma shaqeyn doono importigan so importigan soo u shaqeeya waa inaad soo import gareysataa so waxaan leeyahay marka trudal waxaan ka bilaabi doonaa wax loo yaqaano trutal oo macnaheedu yahay trutal speed ama xawaaraha uu kusoo muuqan doono ama calanka lagu sawiri doono 2 second ha noqdo yani 2 ha noqdo speedkiisa so sidoo kale 20 second it means 20 second or 2 second waa 2 seconds 0.2 hadii loo waa 2 seconds 2 seconds or 20 seconds oo kale isku mid yani kadibna waxaan leenahay trudal dots sidoo kale waxaan siin doonaa wax loo yaqaano colorka aan siinayna maxaa waaye trudalka meesha kasoo muuqan doono colorkiisa muxuu noqon doonaa yani waxa la sawiraayo colorkooda muxuu noqon doonaa waxa la sawiraayo colorkooda maxaa ka dhiganaa cadaan iyo blue aan isticmaalayna calanka Soomaaliya markaan isticmaalayna so waxaan leenahay colorka uu kasoo muuqanayo waa white cadaan waaye so sidoo kale enter aan leeyahay okay wait enter leeyahay sidoo kale waxaa laga baahan yahay waxa loo yaqaano trudal.background ama trutal background inaan sameeyo ama background-ka uu kasoo muuqanayo trutal background-ka bg color alla css hadaad hore usoo qaadato waa fahmi kartaa bg color background color laga wadaa
background colorka uu noqonayo muxuu noqon doonaa ka talo waxaan ka dhigi doonaa background colorka blue ama blue caadi ama iska cyan ama la cyan yes cyan say u qoran tahay horta inaan soo weydiino waaye okay coloriska inaan weydiino waaye waxaan leenahay coloris okay coloris html cyan oo kale cyan okay cyanka saana u qornaya cyan color cyanka suugeega markaan fiirina cyan oo qorno internet okay colorkaan ka dhiganayna cyan ka dhiganayna waxaan leenahay cyan so cyan waa kaas okay sidoo kale bg colorka markaan saas ka dhigno sidoo kale waxaan isticmaalaynaa wax loo yaqaano fill color oo macnaheedu yahay markii la sawiraayo maxaa lagu sawiri doonaa waxaan leenahay trudel.fill color oo macnaheedu yahay trudelka inaan color u sameyno colorkaan u sameynayno muxuu noqon doonaa kaliya waa cadaan wax lagu sawiraayo trudelka waa white cadaan waa xidigta markii la sawiraayo cadaana nagula sawiri doonaa sidoo kale waxaa jiri doona wax loo yaqaano trudelkeyga inaan bilaabo sawiritaankiisa trudel.start yani waxaan bilaabi doonaa begin inaan bilaabno wax loo yaqaano drawing ama fill whatever you want fill alena laakiin fill waaye package wuxuu fahmayo trudelkan uu diyaarsan yahay wax walba aan wacaayo waa function ku diyaarsan kaliya waa magacaabaya kalaradaan isticmaalaya speedka aan sameysanayo laakiin waxaan dhan waxay ku diyaarsan yihiin trudel package-ka kaliya waxaa laga rabaa inaad isku aadiso si programkaagu u shaqeeyo soo markaan fill dhaho hadda meeshan waxaa laga rabaa marka inaan loop sameeyo loopka macnihiisu waxaa waaye xidigta meeqan ka kooban tahay 5 gees ay ka kooban tahay sax loopka waxaan sameynayaa loop 5 gees ii sameynayo loop waxaan sameyn doonaa xidigtaas sawiraayo oo 5 gees sameynayo soo see u sameynaa waxaan leeyahay for loop waa naqaanaa for loop aan isticmaalaynaa I in range markii I rangegeeda uu yahay rangegeeda ha gaaro xajmigeeda 5 markuu gaarayo yani I rangegeeda waa 5 laba dhibcood ama column inta leedahay so ayga markii saas la sameeyo waxa la dhigi doonaa meeshan xisaab waa fiiri trudel.forward isma qorana forward aan dhahno kadibna bracket aan furayna bracketka waxa lagu dhex xoraa marka inta u rabtaa in loo wado yani forward hore waa maho yani hore markii laga hadlayo wax markay hore u socdaan iyo markay leftiga ka socdaan way kala duwan yihiin xy in axis iyo y axis way kala duwan yihiin so wax markuu saan u taagan yahay uu hore u soconayo waa x markuu left iyo right u aadayna yani waa y say la tahay x axis y axis so points kaas waaye so marka forward hore u socod waa mo waxaa leenahay 100 inuu hore u socdo so markaas is dhaw adana intaan leeyahay sidoo kale adana trudel dot waxaan leeyahay trudel right midigta ha aado markii la sawiraayo يعني كور مركي لقى بلاو هره هو شيء بحو مديكتنا هسوء هذا واحد لو يقانو مركي لقى الله بقول أفرتني أفر كدبنا حاليها إنتر شنو كلا هذا واحد سمينا مركي تروتل كستارتيشن أو كبلاونا ماشان وحاول ماشي فنشن كشقد وكبلاونا تروتل بين تروتل كمركي البلاو لوب كان على سمين دونا كدبنا حاول بأن تروتل كلا دمه شلون دمنا تروتل ك وحالينا تروتل دود end fill يعني end fill معناه وحاي بوحنته دمي end fill معناه وحاي بوحنته كدمي كدبنا انتر لاين هاي كدبنا واسيف غرينا سو كود كهلان واي سو وافيرنا دو ايرور جرو حلينا دو صحيح واركينا سو حلينا maxaa magaca u bixin maxaa test waxaan leenahay test.py انتر لاين سو ادو ايرور جرو ايرور soo saari doona adu ايرور jirina caadi u gudbi doona so waa sugeena intuu ka gudbaayo ama intuu ka soo kacayo waqti yar u qaadana okay wait a second it takes a time xili yar u qaadana okay waxa waaye wuxuu sameeynayaa wuxuu soo qabsiinayaa wax loo yaqaano tutorialka uu soo kicinayaa package-kaas so wax yar aan sugno okay adoo basaan soo daahayo error soo wada so meesha waxa ku qoran fiir error soo bixiyo wuxuu dhahay error kuwaas waxa line 11 uu ka haastaa ay 11 ay ka haastaa waxa ku qoran fiir moral trudel markii laga hadlayo has no attribute wax attribution la dhahayo forward waxa isticmaalnay o waxa laga wadaa o ma hay e waa meeshaas error ka jira
meeshaan aan ka bedelayna means waxa waaye haduunan garanayn wuxuu ku dhihi doonaa attribute noocan oo kale totalka kuma dhex jiro so hadda waan dhaanay control s aan leenahay kadibna waxaan leenahay cls kadibna enter aan leenahay so hadda waan kicinaynaa marka waxaan leenahay testy.py enter aan leenahay so waad ujeedaa meeshaan wuxuu ku sawirayaa sayaankii waa kaas okay aan kusoo celino fiiri hal mar waqtiga zaid py aan dhahno enter aan dhahno so fiiri oo ujeedaan okay calankii uu sawiray so meeshaan aan bedelno fiiri timeka aan ka dhigno tusaalaan 6 oo kale aan ka dhigno 6 second oo kale okay si waxaan leenahay testy.py enter it means 6 yes secondada zaid way 6 seconds it means 6 seconds 0.6 way mo tusaalaan hadda meeshaan aan ka dhigno fiiri 1 okay wait a second يعني second markuu bato iyo markuu yar yahay fiiri meeshaan waa kala duwan yahay fiiri waqtigu qaadanayo yes waa kaas so haddaad cashirkan ku faa'iiday in badan waad ku mahadsan tahay so thank you very much cashirkeena halaasuu ku eegyahay intaan cashirkan cashir lamid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadgelyo amaana allah akhyaarta